الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ummadda Soomaaliyeed aan ka wada xunnahay nimankii u ololeynaya farmaajo oo nin fiican aanu haysanay waa nin maaragtay gollayba waa siyaasi danaysta ah ganacsada weeye marka waxa dhibka jira waxa weeye Soomaaliya waxay u baahan tahay ninaan calmaani ahayn ninaan ilaahay iyo dadka kala goonin waxay u baahan tahay nin ilaahay iyo dadka isku xiraaya nimankan maaragtay dibadda ka wada tago baasaboorada kala wata oo boorsada maran la tagay xamar ee raba in loogu soo buuxiyo kulligood waa ganacsada saasa way kulligeed annagu maalintii u horeysay farmaajo aad baan ugu faraxnay waan la jirnay waan taageeraynay laakiin maanta markuu magacaabay tuugii u weynaa ee badda iyo bariga iyo maaragtay ganacsadaha ugu weyn oo Norway ay jawaari asiga ka wada yimaadeen marka waxaan halkaa ka aragnaa inay Soomaaliya god weyn ku dhacday oo balaayo ku dhacday waa annaga oo Sheekh Dheere ra'iisul wasaare ka dhigana ninka maanta la keenay nimankan waa niman u soo tashtay wadankan Almaaniyiin baa la yiraahdaa waa niman diinta ka fog waa nin daacadda ka fog waa niman runta ka fog waa inuu maaragtay siyaasiga Soomaaliyeed baan sheegaa soo kursiga ugu fariisto mar hadduu fariistana wax ka galay male shacabka iyo danta iyo wax uu akhrinayo dhan wax ka jiro male farmaajo uurkiisa iyo wuxuu afka ka leeyahay isma laha uurka waxa uu qarsoon ilaahum baa og laakiin afka uu af macaan yahay laakiin waxa uu ku hagayraran fuaad buu keenay wuxuu keenay ninkii maaragtay Kenyaatiga ahaa oo ka dhigay maaragtay ka dhigay meesha uu waxa agtiisa wareegsan oo dhan waa nimankii ganacsadayaasha wadanka rabay inay gataan maxaan xasan sheekh ula dagaalayni maxaan xasan afar sano xasan sheekh iyo dawladdiisa waxa uga sheegaynay xasan sheekh dawladdiisa baa joogta ninkan waxa uu keenay xasan sheekh ma uu keenay waxaana loogu talagalay in la fashiliyo in shacabkii asaga la iska soo horjeediyo farmaajo waa dhiiqooday waa beenolow waa mujrim waa daanyeer waxa uu kala og yahay male hatta wuxuu awoodi waayay intuu soo fariisto inuu maaragtay shacabka meeshu qaaday facebookiisa ayuu ka doortay ninkan horuna ka baxay taa waxay ku tusaysaa inuu dan iyo waxba kala hayn shacabku beenta u sheegay damaashaadkii iyo orodkii iyo habeen saaxasho la'aantii iyo bambuur baqtii farmaajo ii geeya wixii oo dhan ka kacwiye eel bacad lagu shubeeye god bacad lagu shubay weeye nin walboo siyaasi Soomaaliyeed waa beenaale waa tuug waa qaa'in wadan waxaan leenahay waad ku dhiiqotay 4 sano iska tumo kuwii horeba guryihiiba ijaar oo iska bixisay bay of weeye kuwa kale sii gado oo maaragtay meeshaada ka sii qaraabo annagu waxaan leenahay Soomaaliya god ayay ku dhacday Ethiopia Kenya kama lug baxsano waxa ay ku dadaalaysaana inay fashilto ay weligeed wadankan uu kor u kicin intaas ay rabtaa wayna ku guuleysatay ninkan ba haday keentay Kenya ama Ethiopia ka dambayso dami jadiidna ay ka dambeeyaan way ku guuleysteen waxa ay rabeen Soomaaliyana god aad u xun oo ka sii dara 4 sano hore ka daran ayay ku dhacday badana waa u dhamaatay waa meeshii ugu dambeysay ninkii ololeynayay oo lacagta bixinayay oo Raashiya iyo meel walba laga sheegayo waa nin gaalada sidoo ula shaqaystay yaqaan aan maaragtay Almaaniya aan weligiis tukan oo salaad iyo quraan waxba shaqo lahayn oo taaga guduudka ay suudka madow wax mooday oo maaragtay diintiisii laga fogeeyay oo maaragtay ma tukada ah marka kulligiin ma tukada wada tihiin wixiina dibadda ka tagay war wadankan toos u gada oo waxba noo soo leexanine aadi u gada wadankan farmaajo waa ku taageersaneen waa ku raacsaneen maanta laga bilaabo kulama jirno marka waa ka soo horjeednaa waan been baan noo sheegtay waa isu keen sharaxday waa isu keen qorxisay waa maaragtay afkaaga iyo qalbigaaga isla socon wax been ayaa noo sheegtay waxaan ku leenahay 4 sano iska qaraabo iska tumo guriyo dhiso maaragtay meesha ka sii wad waa wax loogu talagalay Soomaaliya inayna weligeed kor u kicin waa wax loogu talagalay weligeed inay mugdigaas ku jirto mugdi oo kiyaalaha waxa ka gashatay xaq waxa ka gashateen oo kiyaala madow kulligiin Allah idin duleeyo Soomaaliya waa duleeysan wassalaamu calaykum wa rahmatullahi